waxaan dadweynaha ku wargelinaynaa in goobuhu ay furmayaan 6 subaxnimo ama 6 AM sida loo yaqaan goob kasta ay furan tahay sidaas darteed inay goobaha tagaan oo codkooda dhiibtaan bismillaahir rahmaanir rahiim habeen wanaagsan caawa ay tahay bishu 24 bisha May 2023 waxaan rabaa inaan halkan kala hadalo bulshadeynta reer Puntland oo biri ay u tahay maalin weyn oo ah 25 bisha May maalinta loo qorsheeyay qabsoomida doorashooyinka golayaasha deegaanka Puntland waxaan dhammaan dadweynaha kala duwan ee Puntland meel kasta oo ay joogaan gobolada min bari ilaa galbeed ilaa waqooyi meel kasta oo cirifyada dalka ah in aan ugu bishaareyno inay biri codkooda dhiiban doonaan waxaan dadweynaha ku wargelinaynaa in goobuhu ay furmayaan 6 subaxnimo ama 6 AM sida loo yaqaan goob kasta ay furan tahay sidaas darteed inay goobaha tagaan oo codkooda dhiibtaan qof kasta waa inuu ID-giisa gaarka ah hore u soo qaataa inta aanu gurigiisa ka tagin waa inuu eegaa dhabarka dambe ee ID-giisa ama kaarkiisa isaga oo ka heli doona goobta rasmiga ah ee uu ku qoran yahay ama ay tahay inuu ka codayo si uusan u khaldamin ma codayn karo qof aan wadan kaarkiisii qofna qof kale kaarkiis kuma codayn karo qofku wuxuu leeyahay hal cod oo kaliya system u diyaarsan ayaana yaala meesha waxaan dadweynaha ugu baaqaynaa inay soddonka degmo ay biri doorashadu ka dhacayso inay dulqaad muujiyaan inay safafka istaagaan inay is ixtiraamaan inaanay iyagu shaqada communicate garayn ama adkayn hadday isriixriixaan aan qofna qof ka hormarin inay inta jilicsan u naxariistaan inay hormaraan oo codkooda dhiibtaan isgargarbin iyo campaign ma jiro maalintaas calaamad urur ama astaan urur gaari leeyahay lagama ogolo goobta waxa kaliya oo laga ogolay qofku inuu isaga yimaado ID-giisa soo qaato safka galo codkiisa dhiibto cid allaale iyo cidda uu rabana inuu codayo codkiisu u gaar yahay qofka muwaadinka isaga waa bareefad uu yahay si gaar ah ugu yahay sidaas darteed waa in guud ahaan nidaamka la ilaaliyaa waa in loo hoggaansamaan dadku nidaamka ammaanka hay'adaha amniga iyo shaqaale weynaha tiibe waan aad ugu mahadcelinayo oo dhammaantood in ka badan 395 goobood caaw ku diyaarsan inay ka shaqeeyaan in dadka muwaadiniinta ay codkooda dhiibtaan iyagana aan ku boorinayaa inay shaqadooda sidii lagu tababaray sidii ay ku dhaarteen sidii waajibaadkooda shaqo ahaa inay u gutaan qof walba oo muwaadin oo goobta yimaadana loo fududeeyo xisuna u dhameystireen inuu codeeyo dhammaan ururada siyaasadda iyo wakiiladooda iyagana waxaan ugu baaqayaa inay qayb ka noqdaan shaqada inay ka shaqeeyaan hufnaanta shaqada inaysan maaragtay wixii khaldan ay si channelka saxda ah oo reportingka ay mariyaan iyagana intaasaan leenahay waxaan iyagana aad uga xunnahay in sidaad arkayseen bacaawa aan hakinay 3 degmo sababihii aan sheegnay oo ammaanka iyo xaaladii jiray iyo inaan mar walba fursad siino meeshii caqabad ka jirto inay xallisanto iyadoo aan dhibdhicin intii hadda hawlahaas jireen aan dadaal badan sameeynay inaan maaragtay fursad badan bixino in xalkaas yimaado iyagana waxaan u rajeynayaa inaysan niyad jabin in subax iyo wanaagaas aan sugayno fursadna aan siinay xilligii ku habboonaatana ay qabsoomi doonto hadduu ilaahay idamkeeda leeyahay guud ahaan waxay biri tahay maalin taariikhi ah marka loo eego dalka Soomaaliyeed oo in ka badan 50 iyo dhowr sanadood 60 sano ku dhawaad aan inta badan marka laga reebo meelo kooban aan doorasho qof iyo adeegilin shaqada marka baaxadaas
ayaa dadka muhiim aan u qabsanay dadka Soomaaliyeed oo dhanna oo daafaha dunida kala joogana waxay u tahay fursad farin walba halka ka baxda waxay gaaraysaa dadka Soomaaliyeed wax walba halka ka qabsoomaana waa wax dadka Soomaaliyeed oo dhan u qabsoomay marka waxaan rajaynaynaa inay guul iyo nabadgelyo nagu dhamaan waxaan leenahay nabad ku codeeya codkiina si xor ah u dhiibta cidna kala tashanina codkiina cidii aad u aragtaan inay tahay cid ugu habboon dhiibta tiibagna intaas ayay ka shaqeynaysaa oo ilaalinaysaa haddii Ilaahay idinkeeda leeyahay meel kastana waxa ku diyaarsan xarumaha kala duwan oo la diyaariyay oo wixii cabashooyina ama amniya nambar gaagaaban oo la soo xiriiri karo nambar caadiya xarunta call center-ka ee guddiga dhammaantood waxay ahaan doonaan heegan marka dadweynaha xalaba fariinteeda ugu dambaysa inaan u diro dadka inay berri codkooda si nabad ah ku dhiibtaan baan u rajaynaynaa aad iyo aad u mahadsantihiin